labada xabsi ee ugu ilaalada fiican adduunka. Lambar 7 Fuju Prison. Fuju waa xabsi aad u adag oo ku yaala Fuju, Tokyo, Japan. Waa mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaala dunidan. Waxaa ku wareegsan derbi gaaraya 1.8 kiiloomitir aad u adag. Maxaabiistuna ku kalifaysa inay u hoggaansamaan sharciyada kala duwan, dhaqanka, gudbinta waraaqaha iyo waxqabadka shaqada. Inta badan dambiilayaasha waa inay shaqeeyaan 8 saacadood maalintii. Sidoo kale, maxaabiista ayaa dalban kara buugaag, journalisti ama baayac mushtarka dukaanka xabsiga. Lambar 6 Belmarsh Prison. Belmarsh waa xabsi ammaankiisa aad loo ilaaliyo oo ku yaalo Thamesmead, London, oo caan ku ah qabashada dambiilayaasha ugu khatarta badan boqortooyada Ingiriiska. Marka loo eego xogtii ugu dambeysay, xabsigan waxaa ku xidhan 792 maxbuus. Sidoo kale, xabsigan waxaa ku yaala derbiye adag, munaaradaha waardiyayaasha iyo tiknoolajiyadda amniga ee horumarsan, taasoo u diidaysa dambiilayaasha inay awood u yeeshaan ka baxsashada halkan. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad u adag in la ogaado nidaamka xabsiga boqortooyadan. Sidoo kale, waxaa jira baxnaanin iyo hubinta daryeelka maxaabiista, inkastoo aad loo adkeeyey borotokoolka amniga. Pelican Bay State Prison. Pelican Bay oo ku yaala magaalada Crescent la dhisay 1989 oo leh 2380 maxbuus. Maxaabiista waxaa sida caadiga ah lagu hayaa meel gooni ah 23 saacadood maalin iyo habeenba, wuxuuna leeyahay noocyada kala duwan oo heerarka amniga ah si loo xaqiijiyo ilaalinta ugu habboon. Unug kasta waxaa lagu kormeeraa meelo fog nidaamka xakamaynta, sidoo kalena ay si toos ah u kormeerayaan waardiyayaasha. Si kastaba ha ahaatee, goobtan waxay caan ku tahay guriyeynta maxaabiista ugu khatarta badan ee ku jira nidaamka xabsiyada dowladda. Lambar 4 Guantanamo Bay Detention Camp. Xerada xabsiga Guantanamo Bay ee ku taala Cuba waa xabsiga ciidamada Mareykanka kaas oo shaqaynayay 2002 ilaa 2008. Ammaanka xabsigan ayaa ah mid aad u ballaaran, waxaana ka mid ah ilaalada, joogitaanka waardiye adag, fiilada ooda, ilaalinta kaamarada iyo helikobtarada. Habmaamuusyadan adag ee amniga ayaa gacan ka geystay helitaanka sumcad sida mid ka mid ah kuwa ugu ammaanka badan xabsiyada adduunka. Lambar 3 Black Dolphin. Black Dolphin waa xabsi aad loo ilaaliyo oo ku yaala Ruushka, gaar ahaan xadka Kazakhstan, oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 700 oo maxbuus. Fiidiyowga iyo saamaynta ilaalada wareegtada ah ee 15 daqiiqo kasta. Sidoo kale, marka ay maxaabiistu ka baxayaan qolalka ay ku jiraan, waxaa lagu khasbaa inay socdaan oo ay dhexda ku foorarsadaan, gacmahana dhabarka saaraan, indhahana laga xiro. Maxaabiista waxaa loo qoondeeyey 90 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii si loo helo fursad unugyadooda looga raadiyo alaab kontrabaan ah. Magaca xabsigan wuxuu ka yimid dolfinka madow ee maxaabiista loo dhigay albaabka weyn. Lambar 2 ADX Florence. ADX Florence waxaa loo arkaa mid ka mid ah xabsiyada ugu ammaanka badan adduunka, waxaana maamula xafiiska federaalka ee xabsiyada waaxda cadaaladda ee Mareykanka. Waxaa loo qaabeeyey qaab aanay maxaabiistu ka warqabin halka ay ku sugan yihiin, laguna khasbay inay ku noolaadaan xabsi gebi ahaanba cidla ah. ADX Florence waxa uu qaadi karaa ilaa 490 maxbuus. Boston Marathon waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan maxaabiistii ku noolaayeen xabsigan. Lambar 1 Stamford Prison. Xabsiga Stamford ee ku yaala gudaha Stuttgart, Baden-Württemberg ee Jarmalka waxaa mar waliba ilaaliya ciidamo gaar ah iyo shishiyahan saaran saqafka sare, taas oo ka dhigaysa midka ugu amniga badan adduunka. Barxadda iyo saqafka waxay ku xiran shabaag bir ah oo lagu iftiimiyey nalal dhalaalaya iyo nalal neon ah. Maxaabiista waxay leeyihiin jadwal adag, ilaalin joogto ah iyo tallaabooyin